kulanti wacan daawadayaal halkani waa warbaahinta Xawar News ugu soo dhawaada barnaamijka hadalhaynta waxaad ka daawataan warbaahinta Xawar News daawadayaal barnaamijkan waxaan alaabeen kugu soo gudbinaa qodobada ugu xiisaha badan ee markaasi laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya. qodobada barnaamijkan aan ku soo qaadan doonana waxaa kamid ah guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabelle waxa ay cabasho ka soo gudbiyeen arrimaha doorashada ee ka socda deegaanada maamulka Hirshabelle ee xildhibaanada golaha aqalka sare. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu shir ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada in ay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho si looga areensado kiiska halista badan dhaliyay Ekraan Tahliil Faarax. dowladda Mareykanka sidoo kale waxa ay war lama filaan ah ka soo saartay khilaafka hareeyay filla Soomaaliya. sidoo kale waxa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo maanta la sheegay inuu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah wadooyinka magaalada oo loo xiray. daawadayaal haddii ay tahay markiin kugu horeysay oo soo booqataan channelka iyo page-ka warbaahinta Xawar News, like iyo subscribe inoo saara si aad ula socotaan wararka iyo barnaamijyada xiisaha leh ee halkan aan soo gelino. waxaa maanta magaalada Muqdisho ku soo wajahan agaasimihii hore ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo maalintii shalay ahayd lagu xanibay magaalada Djibouti caasimadda wadanka Djibouti. Fahad Yaasiin iyo wafdi uu la socday ayaa waxaa lagu xanibay shalay garoonka diyaaradaha magaalada Djibouti ee dalkaasi Djibouti, waxaana ugu dambeyn diyaaradda ay ku laabatay wadanka Turkiga iyadoo arintaasi siyaabo kala duwan ay uga hadleen siyaasiyiinta Soomaalida. ayaa haddana eedeynta ugu badan waxaa loo jeedinayay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa lagu eedeeyay in uu qaaday tilaabo aan la mahadin, isla markaana waxaa la sheegay in uu ku fashilmay arrimaha siyaasadda gaar ahaan khilaafka kala dhexeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maanta ayaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho uu soo gaaro Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo saraakiil la socotay, waxaana magaalada Muqdisho inta badan maanta xiran wadooyinka halbowlaha halkaasi, waxaana laga dareemayaa magaalada Muqdisho in safarka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo inta badan laga hadlayo saakay Soomaaliya. arinta ugu muhiimsan ayaana ah in Fahad Yaasiin oo loo haysto kiiska dilka Ekraan Tahliil Faarax haddana laga celiyay magaalada Muqdisho. arintan ayaana waxaa la sheegayaa in ay sababtay khilaafka marba marka ka dambeysa kasii daraya ee ka taagan filla Soomaaliya, kaasi oo u dhexeeya Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, oo asaga shalay la sheegay in uu qaaday tilaabo aan la mahadin kadib markii dad rayida oo la socday wafdiga uu hogaaminayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la sheegay in lagu celiyay magaalada Istanbul ee caasimadda dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa arintani waxa ay ka hadashay, waxayna sheegtay in ay Djibouti si degdeg ah looga baahan yahay in ay jawaab ka bixiso sababta dadka Soomaaliyeed ee ka soo safray dalka Turkiga dib loogu celiyay isla wadankaasi Djiboutina saacado kooban lagu xanibay. dowladda Djibouti oo dhankeeda arintaasi ka hadashay waxa ay sheegtay in arintani aysan wax lug ah ku lahayn. wasiirka arrimaha dibadda dalka Djibouti oo hadlayay waxa uu sheegay in arintani aysan waxba ka quseyn dowladda Djibouti, isla markaana diyaaradan cilad farsamo ay ku timid sidaas awgeedna loogu celiyay wadankii ay ka soo kacday. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in diyaaradda Qatar Airways sidoo kale ay iska diiday in ay soo qaado wafdiga uu hogaaminayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana ilaa iyo haatan si rasmi u caddeyn sababta ka dambeysa in Fahad Yaasiin lagu celiyo dalka Djibouti oo maanta la filayo inuu soo gaaro magaalada Muqdisho, waxaana laga dhursugayaa halka uu ku dambeyn doono kiiska Ekraan Tahliil Faarax ee lagu eedeynayo in uu ku lug leeyahay arinta ugu weyn Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda ah la taliyaha dhanka amniga madaxweyne Farmaajo, horeyna uu ahaa agaasimihii hore hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo uu wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xilkaas looga qaaday, taasi oo sababtay khilaafka haatan ka taagan filla Soomaaliya.